laga aaminsan yahay gabadha haddii warbaahin ku beerto in ama dhaqan ahaan ah marka sidee lagu hortagi karaa in fikrada khaldan ee bulshada Soomaaliyeed maskaxdeeda kaga jiro oo gabar haddii warbaahin ku beerto ama loo aqoonsanayo gabar qoyska ka go'oonsan arintaas waa su'aal fiican waana wax meesha ku jiro runtii mawaayid dambe masahada waayid dambe dadka Soomaaliyeed gaar ahaan waalidka haweenka waalidiinta waxay ka aaminsanaayeen gabadha haddii mar saxaafada soo gasho inay maaragtay xadki goysi ama maaragtay waxaan loogu talagalay su'aalahan waxa la jiray gabadha haddii mar gabadha fanaanada ay gabadha maaragtay wariyada ama saxafiyada waa isku wax maaragtay qaladaad ay sameynayaan dad akhlaaqdii oo kale waa lumaysaa waxa waa dad u nugul inay wax lagu sameeyo oo victim ay noqoto laakiin bilcagsi arintaas waxaan leeyahay wax ka jira malaha gabdhaha saxafiyiintu waa gabdho doorsoon oo sharaf leh oo asturan oo akhlaaq iyo diin leh rabana inay dalkooda badbaadiyaan oo wax ay u qabtaan fikradaas waayadii hore way jirta laakiin hadda waxa jiro in gabdhihii lagu dhiirigelinayo inay maaragtay mihnada saxaafada ay ku soo biirayaan way jireen gabdho maaragtay loo diiday mihnadan inay soo galaan maadaama waalidka ay ka aaminsanaayeen in waxaan ay yihiin wax maaragtay khaldan oo gabadha hadii saxafiyiin noqoto ay maaragtay akhlaaqdeedii halkaas ku lumeysay sumcadeedii taana waxa saahshay qaladaad yar oo waagaas jiri hadda laakiin waa maaragtay Mustafa waxa la isleeyahay waa laga gudbay hadda aniga gabar saxafiyada ah tababarana waa ahay casharaan bixiya gabdhaha aan la sheekaysto kulligood inta badan waxay sheegaan in waalidka caqabad iyo bulshada ka haysato Mustafa markii gabadha ay meel aado oo barnaamij ay doonto ama war ay doonto bulshada waaga hore waxa laga aaminsanaa in waxaan ay qalad tahay oo maaragtay gabadha ay iska dhaafto waxaan maadaama aysan ka qaban karin ama wax qalad oo bulshada ceeb ku ah maaragtay perception xun ama aaminaad xun ay ka hayso hadda laakiin waxa moodaa in gabadha la amaanay lagu dhiirigelinayo inay maaragtay saxaafadii soo gasho mihnadeedii kororsato si ay dalka wax ugu qabato marka fikirkaas wuu jira haddana meelaha qaar uu ka jira laakiin sida hore ma aha